waan leeyahay oo la wareejinay baraha bulshada aniga loogeeda la igu soo diray la igu soo mishin gareynay videogaas aan doonay inaan faahfaahin idinka siiyo videogaas waxa weeyaan video taleefankayga laga shubtay waa walaashan hibaaq gobaad oo soo hadashay shakhsiyaad caan ah oo awada taqaanaan ayaa xogteedii la xaday oo breefadka u ahayd oo qaarkood aysan wanaagsanayn baafiyay waxaa kamid ah dad ay aad u taqaano ka bulshada la wadaagay ee social media keenay ama maxay yidhi dadkan sax dadkoodana wad mahadsantihiin baan leeyahay waxaad ka heshaan aniga waxba iga siinaa kulanti wacan salaamu calaykum saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waan idin salaamayaa isku soo noqod wanaagsan waa ku faraxsanahay mar kale inaan halkan isugu imaano oo aan xog iyo weliba muuqaalo aan isdhaafsano waa tabliiqii baraha bulshada walaalkiin Cabdilcaziz Rieli maanta mowduuca aan ka hadlayo waa mowduuc dhowr jeer aan uga digay hablaha Soomaaliyeed iyo weliba xitaa dhalinyarada rag hadda ha noqdaan oo halis ah oo ku aadan ilaalinta xogta mobilka ku kaydsan video dhan ayaan ka sameeyay videoga markuu dhamaado ayaan idin saari doonaa linkiga hoosena waa idin dhigi doonaa sida aad iska ilaalinaysaan dhibkan oo kale inuu ku dhaco marka hore haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe dhe gambaleelka furo isla markaana muuqaalka share garay si saaxiibo badan ay wax uga faa'iidaan saaxiibayaal walaashan hibaaq gobaad oo ah gabar Soomaaliyeed oo fanaanad ah oo ah gabar Soomaaliyeed oo saxafiyada marna jilaa ah ayaa waxaa la jabsaday oo si hackarnimo ah oo xatooyo ah loo galay baraheedii bulshada iyo mobilkeeda ayaa loo dhacay sida ay noo sheegayso xogta markii la jabsaday waxaa la isku dayay in lagu handado hibaaq laakiin arintaasi way diiday hibaaq ma taqaano shakhsiyaadka dhibka geystay laakiin waxay taqaanaa shakhsiyaadka markii la jabsaday xogteeda faafiyay ee baraha bulshada la yimid oo youtubers waaweyn oo caan ay kamid yihiin oo dad ayada saaxiib la ay kamid yihiin oo ay kamid yihiin fanaaniin kamid yihiin oo dad Facebook soo gali ay kamid yihiin Instagram Snapchat TikTok iyo meel kasto dadkaas waxay isugu jireen laba qayb ayada ku xumeynaya iyo qayb wanaag u maleeya laakiin xogtii qofka jabsaday oo isqarinay uu soo dhigay hal ciwaan oo aqoonin ciwaano waaweyn oo dad badan ku xiran yihiin keenay waana gacan kamida gacmaha qofka shaydaanka uu ku adeegto waliga ha noqon gacan kamida gacmaha shaydaanka uu ku adeegto waa idin kaga digaa waxaa dhacday gabadhan sharaxaad ayaan ka bixin doonaa sida loo jabsaday in loo dhacay taleefankeedii data badan iyo xog badan oo ku jirta lagala baxay kayga laga shubtay isagoo kaliya tan maaha daatadeedii professiga ahayd oo dhan ayaa taleefankayga laga shubtay oo taleefankayga gacanta ayaa la isticmaalayay intaasoo dhibaato markay dhacdo shirkadda la xiriirtay oo loo sheegay in arintan wax laga qaban karin oo leerjin iyo balaayo si wanaagsan aan loogu sharaxin way ka guurtay kambanigi Ethiopia simkar ka soo qaadatay daatadeedii waxay ku samaystay markale WhatsApp-keeda loo dhacay xogaha breefadka u ah ayaa dadka dad ehel u xigo loo geynayaa loo faafinaya si loo ceebeysto markale WhatsApp oo dhan ka guurtay ugu dambeyn waxa la jabsaday Facebook-geeda telegaaya Facebook-geeda la jabsaday meelaha ay ku fikirtay ee dhib ka taagan yahay ayaa idin soo gudbin doonaa laakiin sidee Facebook-geeda loo jabsaday aan Facebook-geeyay oo aniga la iga saaray waa dhibaato kale gabadhan go'aan sax ah iyo fikir sax ah ay qaadatay dhibaatada waa mobilka gacanta ku haysato way ogaatay in mobilka la isku dhaco oo hadii uu Gmail kugu xiran yahay uu yahay Samsung waxaas lamidana problem uu ka imaan karo hadii kale uu yahay Apple ID oo iPhone ay wadataan Apple ID ka imaan karto Apple ID dhan iska bedeshay mar kale waa lagu dhex jiraa taleefankeeda igu WhatsApp waan haynaa Apple ID-ga cusub iyo password-ka oo wada socda oo aan waaya maxay sameysay markay ogaatay meel lagu deynay inaysan jirin oo waxaan majinba ay yaabtay warartay waliina xogteedii daatada la bixinayo loo hanjabayo la waalayo waxay sameysay taleefanka iska turtay wali laga maharin wala daba jooga ilaa marka dambe ay wax walba oo ay isleedahay waa lagu soo dhuuma kara hawada ay ka saartay shakhsiyaadkaas marka ayadu way ka guuleysatay waxay go'aan ka gaartay xitaa dad ay la shaqeysay waceen go'aan geesinimo ay qaadatay sababtoo qof xume banaanka askeeni karin waay markaan laakiin markii muuqaal ayadoo ooynayso iyo muuqaalo kale oo breefad la soo dhigay baraha bulshada youtubers waaweyn fanaaniin waaweyn oo iska dhigay qaarkood gabadh inay la danqanayaan ayaa xogteeda gudbinaya
oo meelo badan gaarsiinaya aad ay uga xumaatay fariin u dirtay ka bulshada la wadaagay ee social media keenay ama maxay yihiin dadkan sax tirkoodana wad mahadsantihiin baan leeyahay waxaad ka heshaan aniga waxba iga siinaa bal fiiri wili waxay leedahay waa iskiin cafiyey kuwa mangaabka ay la hadlaysaa waxaan idin sheegaa marka dad badan hore ugu sheegay walaal waxa adiga aadan hubin aad u hubso wax walba aad meesha ku aragto iska soo qaadan iska soo gelinay aniga muuqaalkaas gabadha waa arkay fiidiyoyaal badan arkay iyadoo ooynayso ma soo qaadanin waxaan u soo qaadanin ma raba inaan sii dulmiyo sababtoo raali kama ahan waxaan ka codsanayaa walaalaha soo qaatay ee baraha bulshada keenay gabadhaas way dulmiyeen raali gelin ha ka bixiyaan muuqaaladeedana ha bixiyaan dadka dhibka ku dhacaya oo ayada lamid ah waxaan leeyahay fiidiyowgii hore ayaa idinkugu sharaxay oo aan kaga hadlayay sida mobilkaaga loo jabsan karo amba loo soo dhexgeli karo ayadoo qaabka gabadhan loo dhacay ay tahay qaab kasii khatar badan oo dad hakarisa oo waaweyn arrintan ay ku lug leeyihiin sidaan dareemay sababtoo ah gabadhan meel walba ayaa maaragtay laga soo galay IP address-keeda loo soo diray wax walbo meel walba laga soo galay waa la wareeriyay ani waxaan idin sheegayaa dhibaato gacantaada ku haysataa dhib kugu filan gacantaada ku haysataa waa mobilkaaga ka taxadir mobilka sida xogta qofka lagala baxo waa idin la wadaagayaa أنا أدين سوق بني فيديو لن وأنا كشر رحي أو دور دقيقة أيات جرا فيديو بس لينك يس هوس يسارين هاي واترك كرتان سيدو كلنا إسلديس فيديو وحنسوق جلين دونا مركب فيديو أنا ماذا أيان جيسك صديق دونا وحنقعد سنة صاحب بيال إلى تحدرتان قبل سبحان الله هاي وحيابها أجوب بدن اللي سكوت بصدق حكمه لينكيه اللي سكوت صدره oo linkaas marka aad klik siiso ay tahay accept de amba ogolow in daatada qofkan la wadaagto waxyaabaha uu khatarta badan lagu wareero waaye dadkeena social media aad u fahansanaa mararka qaar la jabsadaa ciwaanadeena waan ka daba tagnaa marka waxaan idinka codsanayaa in aad taxadirtaan daatada iyo xogtiina ilaashataan oo aad iska ilaalisaan shakhsi xumayaashaas kuwa xogtan baahiyey heblaayo oo ooynayso heblaayo asaan la yeelay war adiga adaa baafinaybe waa ka xumahay walaashay saani saana lagu sameeyay muuqaaladana laga xaday arka muuqaalada war muuqaalada walaasha laga xaday oo private sigu ahaa oo nin xumo u xaday ama naag xumo ay xaday maxaad u sii baafinay kaas ma naqaan adaan ku naqaan maxaan loo wadaagay u qari xogta walaasha waxaan leeyahay yaa aad taxadir hadda gabadhan waxa waaye dhibkaas uu ku dhacay laakiin taxadir fara badan hadda kadib muuji inkastoo haddaba ay dadaashay cid walba oo caawin karta oo arrintaas garab ka sii karta oo ay tiga si fiican u taqaana hibaaqa la xiriirto garab ha siiso waxa waaye maanta ciwaankaaga la jabsan karaa keyga la jabsan karaa mid kasta la jabsan karaa waxaa kaloo idinka waaninaa xog muhiim aad u ah amba adiga ceeb kugu ah ha dhex dhigin social media-haaga ha ku kaydin taleefanadaada waxa uu kays adigu waa nooshahay maxaa waxyaabaha qaar u kaydsanay dad waxaa jira waxyaabaha xun kaydsada ha kaydsan waxyaabaha xun iska normal ah oo taleefankaaga haddii lagu arkaan ceeb badan keenin kaydso muuqaalka inta ay kusoo gabagabeynaya saaxiib yaal waan jecelahay mar kale intaan dib u kulmayno nabad galyo bye bye